daawadayaal barnaamijkan bandhiga Somali Channel waxa fududeysay dukaanka Shamsul Baadiya ya salaam haddaba dukaanka Shamsul Baadiya labiso adigoo asturan waxaanad ka helaysaa ee dhex yaala waa cabaayadihii faashinka ahaa camburada iyo waliba jewelry-ga haddaba wixii faahfaahin dheeraada ka dheeho shaashada hortaada taala emailada iyo waliba lambarada si toos ah adiga la xiriir habeen wacan wanaagsan daawadayaal akhyaarta hawada naga daawanaysa habeen wanaagsan galab wanaagsan qolaba xilli ay u tahay waa barnaamijkeeni bandhiga oo aad nooga barateen inaan idin ka soo tabino TV-ga caalamiga ee Somali Channel daawadayaal sida aad nooga barateenba waqtigan oo kale waxaan idin ku soo casunaa marba dadka ku haboon arrinka marka laga hadlayo sidaan horeba idin ku sheegay caawa waxa marti iigu ah aan u kacno dhinaca iyo suugaantii Soomaaliyeed fanaan caan ah oo aad wada taqaanaan runtiina marka aad aragtaan aad jeclaysan doontaan inaad ba weydiisaan heesaha qaar iyo fankiisa qaybo kamid ah waa kuma fanaankaasi waa Cali Xasan aad baan ku soo dhaweynaya waa salaamantahay deeqo waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dabcan qof waliba meel buu kaga jiraa kaalinta nolosha marka anigu mar waxaa la yiraahdaa waa fanaan mar waxaa la yiraahdaa waa abwaan marka de kulley qof waliba in buu ka qaadan karaa marka waa salaamayaa ummadda Soomaaliyeed saqiir iyo kabiirba aduguna waa salaamanta deeqo aad baad u mahadsantahay Cali Xasan waxa aan ku soo dhaweynayaa TV-gan Somali Channel inaga oo isugu keen dambeysay maran ka shaqeyn jiray TV-yo kale oo aynaan muddo isarag haddana caawa aniga iyo dadweynuhuba waxaan jeclaysanay inaanu kugu marti qaadno TV-gan Somali Channel daawadayaal Cali Xasan sida aan idin sheegay waxaad ku barateen fanaanimo laakiin waa abwaan waa aabba Soomaaliyeed sidoo uu sheegay isagu nolosha meelo badan ayuu kaga jiraa runtii waxaan jecelahay barnaamijka bandhiga oo arrimaha bulshada fanka iyo qaybo badan isugu jira inaan habeenba waxaan isleenahay dadweynahayaga way raali gelinayaan aan ku soo dhaweyno daawadayaal Cali Xasan ayaan ka wada bogan doonaa kadibna waan isu soo laaban doonaa telefoonadu way idin furan yihiin sida caadadu tahay barnaamijkan waxa noo fududeysa mar walba waa Shamsul Baadiya dukaanka laga daba dhacay ee faashinka iyo xaragada looga kala haray oo sida aad ogtihiinba ku yaala magaaladaasi Dubai iyo wadankaas Imaaraadka Carabta Naciimo Karaani waxay idin leedahay waxa aan sameeyay macaamiishayda half price ama sale aad ka dhargi doontaan sida qofba u yaqaano haddaba ka qayb gal oo ha ka harin Cali Xasan ayaan soo noqonayaa Cali waan ku soo dhaweynayaa mar labaad runtii waxa aad sheegtay inaad nolosha qaybo badan aad kaga jirto hayeeshee waxaan ku horeynayaa tiifannimo waxa aad ka soo bilowday sida aan wareysi hore aan kula yeeshay aad ii sheegtay wadankii Soomaaliya waxa aad ka qayb gashay heesaha hirgalay maxaa kugu kalifay arrinkaas deeqo sidaan kuu sheegayba qof waliba dream buu leeyahay ama waxbuu ku fekeraa markaanu ardayda ahayn waxaanu jeclayn aniga inta ila baha inaanu heesno oo fanka iyo ku dayana fanaaniinta waaweyn heesaha ay qaadaan marka macallimiinta waxay oran jirtay maalinta ama heesaha ama ciyaarta intay galaasada soo galaan bay oran jireen yaa maantayto heesaya adiga oo qajilaya ayaa waxa la garanayaa in fan kugu jiro ardaydan hor istaagi jiray miiskaanu tuman jiray waa u heesi jiray farxad baanu halkaa ka heli jiray dabcan markaad xoogaa soo weynaato waxaad ku fakaraysaa inaad dad badan oo intii ka badan ama meel la isugu imaanayo in aad ka muuqato oo ka heesto waxaanu sameyn jiray
aan idaacadahan u dhageysan jiray heesi hirgalay baa la furay waa yaryarahay markaas waqti waxaa jira aan lagu saamixi karin inaad dadka ama bulshada ilaa uu qofku 20 sano 18 dhaafo يعني isagaan ba soo hor istaagi karin ummad 2,000 gaaraysa iyo 1,500 iyo tiyaatarkii haa laakiin waxaan u dhageysan jiray marka ay tartamayaan fanaaniintu waxaan ku garaadsaday waqtigii Xasan Aadan iyo dhageysad baanu ahayn Cabdiqaadir Bagaag ninkii loo oran jiray Cabdi Xasan Dige Cabdi Naasir waxay 70 iyo dhowrkii 72 71 ilaa 3 dhiirigelin baanu ka heli jiray annaga waxaan xukumi jiray hebel baa nambarka galaya iyo hebel ma galaya iyo idinkaasi qorsheyn jiray annaga si qorsheyn jiray inaan iyaga u dhawaano oo wax ka barano oo ama maqal ha ahaato ama kulan ha ahaato anigu waxaan close isku ahayn ninka la oran jiray Cabdiqaadir Bagaag iyo maxaan ku sheegaa Cabdi Naasir Allah yarxamo waqtigaas kadib waxa la soo gaaray 76 kii meelaha markaas aan la furay hirgalaydii anigu groupkaas aan ahaa hees baan qaaday waa ku guuleystay number 1 baan ku galay heeska codkiisa waxaa sameeyay Axmed Cali Gaal miraha ayaa ku sameeyay miraha aniga sameeyay miruhu tijaabay ahaayeen bayd baan qoray anoon u sheegin Axmed cida samaysay ayaan u dhiibay warqadii warbalniyo laxanka ay saarbat ha ay soo coday baan iri mirahay buu iga qaaday aniga waxa iga ahayd ninka waa nin fanaana oo suugaanta yaqaan oo muddo badan fanka ku jiray hadduu miraha kugu soo celiyana Cali waxba garan maysid iskala noqo oo cid kale miraha ka qaado haddii uu soo sameeyana waad gaartay fakarkaagii haa marka sidaas fankii hore ahaa runtii adiga oo ardayahoo class hadday ugu badato 40 arday ku jirto hortooda tadmiistumato ka heesi jiray barnaamijkii heesaha hirgalay wuxuu ahaa barnaamij aad u ballaaran gobolada xataa dadka joogaan ay ka dhageystaan idaacadii radio Muqdisho tiyaatarka la isbuux dhaafiyo sidee ayaa markaa dareenkaagu u noqday markaad intaas oo ummadaysi soo hortaagtay adiga mikrofonkii loola kala baxay waxa weeye kulay inta aad wax sameynaysid ama aad isu diyaarinaysid maalinba meel baa joogtaa mar waxaa jirta imtixaanka laga qaadayo oo aad ka baqayso guddiga ka qaadaya mar waxaa jirta muusiga la tumayo oo broofada ay tahay intaan idaacada loo duubin iyada lafteedu faraqnax bay leedahay inaad teembada khalado in codku tuunku ka khaldamo yani waa marxalado fanku leeyahay oo la soo maro intaas oo dhan waxaad isu diyaarinaysaa in inta dadka hor istaagtid raali laga noqdo oo wixii adigu aad ku fakaraysay aad samayso dabcan ummad badan oo ka soo horjeeda oo aduguna aad leedahay waxay ka xumaanin xoogaa waxay leedahay faraqnax laakiin dhiiranaantu waxay ka imaanaysaa waxa adigu aad rabto wasay tahay markii kaalinta koowaad aad gashay kulley waxa ku galaysaa niyadii ka sii weyn halkee adiga iyo heestii markaa aad ku gashay kaalinta koowaad ma ka qayb gashay oo ka mid noqotay fanaaniintii markaas loo qaadanayay radio Muqdisho ama golaha martida iyo madadaalada mise intaas ka ahayd dabcan markaan galay kaalinta koobaad shucuurtayda habeenkaas ilaahay baa garan kara dabcan rag baan wax la qaybsanayay markaan heesii hirgalay ka qayb galay xagga guri noqodka ama faamilka xoogaa waxaan dhex galay dadka ehelkayga ahaa yacni Soomaalidu fanka sida aan adigu u rabto
ama quruxda uu ku leeyahay uma ay jeclaan iyagu ma laha dabcan arday baad ahayd iskuul baad ka baxday waxa lagu arkayaa inaad dib u noqotay waxyaabo badan oo iska embarrassment ah oo waji fiican yani eedooyinkayga adeeraday walaalahay waa dareen baa galay marka iyadoo sidaas ah ayaan waxaan raadiyey dabcan uma gelin ad markaa adigu ama fanka ka qayb gashid waa beri noqotid ama idaacaha ku qaadato waxay iga ahayd waxaan ma samayn kartaa rag badan oo waxaa jira aan raadiyo muqdisho u gelin fanaaninta aan kaaga sheekeynayay intooda badan cabdinaasir iyo xasan aadan waa naga horreeyeen iyo wax badan ayaa waa beri galay markii ninku yani aada iskuulka ka baxdo ama jaamacad baad ku hawooneysaa ama dhoof baad rabtaa ama yani in aad shaqada adigu ma kala dooran kartid marka anigu dadkii ku fakeray baan ahaa inaan dhoofo oo carabaha galo oo waqti badan bay igu qaadatay 3 sano 2 sano iyo bar kadib ayaan dhoofay sacuudi carabiyaan galay waqti badan baan joogay halkaas fankii waad kaga hadhay markaa fankii dee wadankaasu wadan fan Soomaaliyeed uu ku shaqeyn kara ma aha ta labaad fanka carabtu waa yani ma aha wax sida uu common adduunka uga yahay fanku fanaanin baa joogta aada loo jecel yahay oo carab ah hase ahaatee iyagu maqaamayay ku heesaan xafladay ku heesaan idaacadaha community Soomaali ahaan baan ka hadlayaa Soomaalidu ma lahayn fan iyo meel la isugu yimaado mar baan isugu imaan jiray ama meel aroos ah waxoo dhan waa wax lala dhuundhuumanayo habeenkii haddaad kaban qaadato oo guri gasho oo wax tumato tartiib baa loo tumayaa buuqaa la ilaalinayaa anigu riyaad baan u badnaa ilaahay u naxariista Axmed Cali Haaruun waa daranamle ninka Soomaalidu u aqoon jirtay oo fanaan aad aan u jeclaa ah saaxiibkayna ahaa iyo Cabduqaadir Bagaag Axmed Mooga Allah yarxamu waa noo iman jiray Faysal waa noo iman jiray qaaci iska shacbi ah ayaan iska jiray idinka iskiina weyn joog gareyn jiray oo isma weelin jiray Cali Xasan intii aanad fanka ku soo beerin fanaaniinta aad jeceshahay ee heesahooda aad xiisaysaa ama aad ka qaadi jirtay iskuulka yaa kamid ahaa dabcan 2 marxaladood bay ahayd horta fanaanku hadduu cod macaan yahay adoo aan dooq ahaan u raacin ayaad maqalkiisa jeclaysanaysaa anigu Cali ahaan marka la yiraahdo dabcan fanaanku markuu heeso waa inuu gartaa codkiisu wadada u mari karo waxaan ka wadaa qaab faneedka fanaanintu khaanaday leeyihiin nin cod gaaban buu ku heesaa nin codadka dheer buu ku heesaa fanaanka la qaadi kartid yaa adiga fanaankaaga ah oo aad jeclaysanaysaa anigu waxaan jeclaa codadka dheer sida Axmed Caligaal Maxamed Saleebaan Salaad Shardi ama Salaad Derbi Axmed Mooge codadka noocaas ah Maxamed Axmed ayaan jeclaa waayo markaan la qaadayo inaan wax iga dhimanayn baan u haystay inkastoo qof waliba dhuunta qofba ilaahay sibuu ka dhigaa markii dambe oo hirgalaydii bilaabatayna dee fanaanintii markaas soo baxday oo tartamaysay sida Cabduqaadir Bagaag iyo Xasan Aadan iyo qaadi jiray Xasan Aadan favorite-kaygu ahaa heesihii hore waayo codkiisu waa bays oo cod ballaaran Siraaday iyo Baydhaba iyo
heesii nooca heesahaas runtii waxaad noqotay kaalinta koowaad markii aad heesii hirgalay ka qayb gashay heestii kuugu horeysay ee aad qaadaana waxay ahayd heesta Ramaas heesta lama duubinoo dee haddii la duubayna dee wadan burburba iska dhacayo lama hayo hadda adigu ma xasuusan kartaa dabcan heestii hadda way duuban tahay iyadoo CD oo muusigeedii iyo waxeedii iyo codkeedii wadata midhaheedii waa xusuusnahay waxay ka bilaabanaysay sida meel Ramaas loo rahankii ka soo baxay ruuxayaan dabayluhu reexaanta udugtiyo raqaygiiyo uneexadu dhirtu raama leedahay bariisadu ku raagtoo laaguhu rogmanayaan waa heeska magaciisa Ramaas la yiraahdo ila raacidaada iyo rayraynta aragtida nafta raali gelisay heeska beedkiisa hore sidaas uu ahaa hadda waa duubtay oo wad casriyeysay way tuman tahay marka Ali Xasan heesta ugu horeysay adiga ayaa samaystay heesta ana sameeyay hal abuurnimaad halkaana ka muujisay ma samaysay heesa dambe waa sameeyay dabcan markaan ka soo noqday Carabaha waxay qaadatay dhowr iyo 20 sano ku noolaa waxaan leeyahay waaba ku korayba waa ku dhalay waa ka shaqaystay adiga dhowr iyo 20 sano kadib baan waxaan soo galay Yurub waa ka duwan tahay wadamadii aan ka imid waxay leedahay facilities fun waxaan arkay dadkii oo dhan wada heesay markaasaan de favorite-kaagii weeye waxaan fiiriyay dadku sida ay u jecel yihiin ama dhalinyarada cusub ha ahaato ama kuwii hore ha ahaato qaab wax loo sheegay leedahay marka sidaasaan igu soo celisay inaad iyo xaalado igu yimid oo noloshayda barkeed ah heesahaygu waxay u badan yihiin qisas noloshayda ku saabsan qaar ma ahane marka caruurta hooyadeed baa iga dhimatay waqtigaas soo galay anuu iska heesayaan arkay oo dee maaragtay qofba waxba isku daaweeyaa waa run ilaahay u naxariisto ma aha qofku inuusan filaynin geeridii nolosha ilaahay baa labadaba sameeyay laakiin bashar baynu nahay basharkuna dabcan wixii ku yimaada waa inuu duuduubu qaataa alxamdulilah calaa kulli xaal ma doonayn inaan farxadda maaragtay laakiin runsheega iyo geeri waynu u taagannahay kulligeenna waynu wada dhimanaynaa qofkana dareen unbaa ka keena markuu heesaya ama uu gabayayo halkan markii aad timi ama kugu celisa arrimaha aad sheegtay ama hobbigaagiiyo markii aad aragtay meel jaanis leh aad kusoo rogaal celisid waxaa tahay fankii hore iyo fanka dambe ayaad u dhaxaysaa sideed u malaynaysaa fankii hore iyo fanka hadda inay kala yihiin wallaahi fankii hore dabcan wax badan baan kala socdaa hase ahaatee anigu qaybihii hore ee fanaanintii hore ee aynu barna dhintay barna nool yahay wax badan lama qaybsan laakiin aqoon baanu isu lahayn waxaan jeclaan jiray in aan la kulmo ama heesahooda dhageysto fankii hore fan dhaqan buu ahaa fan suugaaneed buu ahaa midhaha waa loo abdayi jiray codka la iskama qaadi jirin waa la tumi jiray prova la samayn jiray ayaguna waxay ahaayeen niman talenti fiican leh oo bisil wixii oo aan u raadinaynin aqoon darro aanay ku imaanayn abwaaninta maasha allah midho fiican bay samayn jireen abwaanku sida dadka caadiga ah weeye wuxuu jecel yahay fanaaninta nin ka mid ah laba ka mid ah oo wixiisa ku aamini karo marka fanaanintan sida aynu inagu u kala jecel lahay muusiga ayaa miratiriyuhu ama hal abuurku u jecel yahay fanaan hebel inuu ku aamino kala dooran jiray
marka fanka hore wuxuu ahaa fan ku salaysan ahaanteena dhaqankeena miraha oo kuwa macaan kale la dooranayo abwaanku soo diyaarinayo codadka sida ugu fiican baa loo raadin jiray yani fanaaniinta mulaxaniinta ah wax macno leh in uu dadka u keeno ma ahane lama heesi jirin duruufta u saamaxaysay dowladnimaa jirtay isxukun baa jiray fanaanku dowladda u shaqayn jiray lacag baa soo geli jirtay hoy bay lahaayeen tiyaatarkay isugu iman jireen hoy ay ku nool yihiin oo consulis ah oo dowladdu siisay bay ku noolaayeen soo saarayaal bay lahaayeen abwaanay lahaayeen bal hadda kuwan duruufta fanka ku bilaabay ee dadaalka ku keenay iyaga oo qurba jooga cidina aanay caawinaynin is abaabulay heesa sameeyay xataa u casriyeeyay caruurihii yaryaraaye soo korayay oo u jilciyay la waqtigu isbedelaya iyo maxaan ku idhahdaa fanku kuwa sidaad u aragtaa iyagana wallahi waa dareen yani adan oran karin waxbay xumeeyeen ma oran kartid waayo sida aan kuu sheegayay ninku markuu da-yar yahay ayuu isbartaa ma fanaan baa tahay ma waxaa tahay nin noqon kara qaybta sayniska iyo scientificka iyo ku fiican baa tahay qofku waxbuu jecel yahay ma sportskaad ku fiican tahay raggan heesaya waxay dareemeen inay fanka wax ku leeyihiin isku wada mid ma aha rag badan oo waxaa jira fanaaniintii hore qaabili kara ama sakanu noqon kara qaar dadaalaya waa jiraan dhibka kaliya oo haystaa waxa weeye meel ay ka soo baxaan sidii kuwii hore oo laga maamulaa ma jirto heesihii bay iska qaadayaan midhihii u wada fiirsan mayaan codadkii ma kala duwayaan marka burburka ka dhacay Soomaaliya ayaa wixii khaldan oo aad aragtaba aabow ah laakiin anigu waxaan leeyahay heeso kulli wixii markuu qofku galo fanaanku wuxuu isagu leeyahay baa fiican nin kale oo la maqlay ama codadkiisa la maqlay ama kugu xiisayn mayso marka waxaan leeyahay wax cusub ha soo kordhiyaan dadaalkoodana ha kordhiyaan heesahan koobiga ana ha iska yareeyaan intaa un baan leeyahay anigu aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cali Xasan markii halkan la yimid fankaagiiba ayaan ku guda jirnaa intaa waxaan kaga baxaynaa fankii sidoo ahaan jiray sidoo imika yahay inkastoo saad sheegtay qaar yaryar oo badan oo u dhigmo oo qaabili kara fanaaniintii horena ay jireen kuwa yaryar oo dadaalayo sida aad sheegtay koobiyina ay jireen haddana kolley duruuf unbaa reebtay qofkana talentkiisa kala saaraya ama hibada ilaahay siiyey way isku dhex jiraan inta dadaashayna waan ku amaanaynaa inta kalena sida aad sheegtay soo dadaalayaan leenahay heestaas ramaas markaan kasoo gudubno heesahaad halkan ku duubtay hees wadan iyahoo waxaa jirta aad Puntland ayaamihii ay cusbayd ee dowladnimada goonigoosiga ay samaysay aad ka tirisay heesta ma adiga tiriyay mise luuqdeeda un baad lahayd heestaas aniga miraha sameeyay codkana sameeyay iska occasion munaasabad bay ahayd markii Puntland ay noqotay maamul nabadoon ah oo ay nabad sameeyeen Allah u kordhiyo oo ay markaas u baahdeen ama baraarujin ama aanu arkay inay wax fiican qabteen ayaa horta fikradan ugu soo dhacday inaan dadka Soomaaliyeed wax fiican baad samayseen si wada way heesku ahaa iyo meelaha dagaalku ka jiro oo aan leeyahay sida nabadda ay u sameeyeen waa walaalihiina kaga dayda dareenkaas baa keenay marka waqtigeedina waa ku beegantay absolutely
si fiican ayaan u daawaday adigoo waliba cod dheer ku qaadaya masha Allah bal dhinaca telefoonada ayaan markana jaleecaynaa telefoonka ugu horeeya hello salaam calaykum hello hello salaam calaykum عليكم السلام ورحمة. aad baan kuu soo dhaweynayaa magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlaysid وعليكم السلام يا وناسنتين داولت تيجي عالمية صباح الخير وحنا سجارة وسلام يا أبوان حسن أبوان علي حسن وسلم ما شاء الله هذه السلام يا سلام الله aad baan anaguna kuu salaameynaa xabiibti halkaad ka soo hadlaysaa ولا يقول على وقت سعدي وحنا كسر يا مجال الجرو حسن بنت لا ما شاء الله aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa meel dheer ayaad nagala soo hadlaysaa magacaaga مرة كلام على دام هو غادي وسعدي أبوان علي حسن وسلم على بنت لا هذه الدنيا سلام يا ورنعتي هذه الدنيا على أنا الدنيا بنت لا علي حسن وسلم aad iyo aad buu kuu maqlayaa walahi walaal waa ku maqlayaa ka waran Puntland iyo xaaladaha garowe caawa aad iyo aad ayuu jooga u degan yahay gudahaan waa la fiican yahay hawlihiina gurmadkuna aad iyo aad bay u socdaan haddaan barnaamijka usoo noqdo الله علي حسن ورتو waxaan ka codsan lahaa in uu noo qaadid kamida qaado heestii ahay u dari ahay oo ahayd heestii ilaahay ka xijaab balaayada Puntland allow ka xijaab balaayada midkan ila dibadka haya cali xasan wuu ku maqlayaa isagaana kula hadlaya anuna aad baan kuu salaamayaa mahadsanid ayaan ku leeyahay sida aad igala soo qayb gashay barnaamijka adiga iyo reer Garowe haya mahadsanid ayo walaal waa mahadsantahay farxiyo waxay tiri waa in naloo qaadaa Puntland allow ka xijaab balaayada allow ka xijaab balaayada heesta ma adiga lahaa iyadana heesta miraheeda aniga lahaa waxaan wada qaadaynay fanaanka ayaan wada naqaan qoomaal iyo maamada fanka Soomaaliyeed Maryam Mursal iyo Cabdisaaq Alteeso iyo Xawakiin dhowr qof baan ku qaadaynay heesta inkastoo dhowrkii qof inaga maqan yihiin haddana musigiina uu inaga maqan yahay oo naga maqan yahay oo maxaan ku idhaahdaa inay isu dhamaato ay fiicnaan lahayd haddana adigii baa jooga oo codkii iyo midhihiiba lahaa bal codkaagii macaana cali oo inantaa Fadxiya iyo reer Garowe waxaan jeclaan lahaa Farxiya iyadoo muusiga inaan dhageysiiyo codkii in yar u qariid codkii codkii waxaan u malaynayaa inuu muusiga ku macaanaan lahayo balad codkaagii oo original oo natural ah aliyo in yar uga haddii aanad xasuusnayna mid kale inoogu bedeli doonaa mid kale aan ku bedelana farxiyo insha Allah waxaa jirta runtii hees anigu aan jecelahay hablaha Soomaaliyeed oo dhamay ay jecel yihiin inta af Soomaaliga ku hadasho oo dhamay ay jeceshahay heestaas waa wada macaan dumarku ayada aad baan u garanayaa codadkeedii waa wada macaan dumarku inta hooyo Soomaaliya inta gabadh Soomaaliya kulli way jecel yihiin waana kaaga mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya afka haweenka Soomaaliyeed oo dhan heestaas waxa ku jira midho aad u wanaagsan ilaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam aad ku sifaysay hooyadii marka heesta iyo nabi ciise hooyadii marka heestaas waa wada macaan ayaynu ugu bedelaynaa inanteennii Fadxiya ay nagala soo hadlaysay Garowe heestaas ayaad luuqdaadii dheerayd wax yar nooga qariiraysaa Farxiya waa ka cudurdaartay waayo codkii baan xoogaa kale ilaaway muusigiina ma xafidsanay hadda laakiin waa wada macaan waxaan u malaynayaa meel loo dhaafo ma laha waa wada macaan marka waa wada macaan baan cod ahaan kuugu maaragtay bedelaya adoo raalliga ah ku dhufo waa wada macaan dumarku waa marinka nolosheena waa midabka quruxdeena maamuska dhaqankeena
ومرها ترنكنا والله بمتانيتا وما دقاها بستيسا أما حستا كورنتود مرتي إيو دمانتيد مصطفى رسولكيو وما حمد هو يدي ومريم عمرانيو وعيسى مامدي مريم عمرانيو وعيسى مامدي وهذا معان دمركو وهذا معان دمركو aadiya meel loo dhaafaa ma jirto heestii halkii maxaa la oran jiray halkay laxdu dhimatay ayay taal heestii halkaasay taalaa fadxiyana aad baan u salaameynaa iyo dadweynaha reer Garoowe oo dhan waxaan leenahay nabad ku noolaada iyo barwaaqo laynka xiga halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum aad baan ku salaamayaa aadna ku soo dhaweyn يا محمد قلوندي يا حبيبتي سلام الله بان كو سلامنا anaguna halkaad ka soo hadlaysaa magacaaga laki ahmed sabeel laki ahmed sabeel way bay bitlan baan kala soo ma sha Allah laki aad baan ku soo dhaweynayaa heesta waxa uu ilaahay bishii quraankiyo arkada rasuulkeed waryadaada baa kan baa weeye آمين 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 فنانة ديار بابا ينصب بحضي لكي ما قصنا ترتا والله ما حد شراء في توصل ما شاء الله لكي إنك بدن شراء أيام كلنا هاي عادي عاد بضمات الله كوش على هذا معاني أنا ونا عاد بنكوش على لكي عادي عاد أيام وقحهم هاي وكجاي تلفونكي سداديش عشان أنا لكي كوش على هاي أفريد طبعا يا إنك بدن بشر أيام كلها هاي عاد بنكوش ودعينا إن الله إنك حجاها لو السلام عليكم هلو هلو تيفيga iska gaabi telefoonkaada gala soconaysa magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysid halo waan ku maqlayaa may maqashaa magacayga waa Xaawo Cabdullaahi Maxamed Xaawo xagaad joogtaa Puntland gaar ahaan caasimada Garoowe aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay caawa in caasimada Garoowe ay si toos ah ula hadlayaan abwaankoodii aniguna aad baan idin salaamayaa haye maxaad barnaamijka kaga qayb galaysaa Xaawo marka hore waan salaamayaa abwaan cali Puntland magacayagii oo dhan aad iyo aad waan ku jecelahay waxaan aad iyo aad u xiiseeyay calanka u samaysay buluug calanka buluugga iyo cagaarka iyo cadaanka ee Puntland inaad milkiisid astaanta calanka Puntland iga maqashiisid ha calanka Puntland inaad calan baan ku siiyo afka iyo cawaalaha luuqdii adigu heesta miyaad garanaysaa Xaawaay mise cali baan kugu wareejiyaa inuu kugu luuqeeyo maya waxaan rabaa afkiisa asaga afkiisa aniga waan garanayaa laakiin asagaan xiiseynaya afkiisa inaan ka maqlo aad iyo aad waana jeclahay abwaankayga qaaliga ah ha noolaado aamin adiguna noolow walaal heeska waa calanka astaanta marka wuxuu ahaa caradaya diintii calankan ku dhaarto lilaa irka midabkaaga caalaw doortay markii lagu ciile colaad kugu raagtay inaadan ciloonban ku siiya cadkayge cawaalaha oyd intaas ayaan ka aad iyo aad cali xasan aad baad u mahadsan tahay waxaanad moodaaba hablihii Puntland joogay inay iyagii fanaaniin wada yihiinba oo ay ina xasuusinayaan beheesihii adigana ay aad ku jecel yihiin oo taageerayaashada waaweyn ay yihiin inkastoo jeclaan lahaa iyadoo isu dhammaystiran haddana meel kasta ka heli karaan halo assalaamu calaykum
halow tv-ga iska gaabi halow ha walaalo soo dhawow magacaaga burco sahre hargeysa iyo sahre burco ayaanu aada u saaxiibnahay iyaga ayaa inta badan ila soo hadla markaa labada sahre ma kala saaro sahradii hargeysa ayaa tay adigu maasha allah ii waran sahre ma fiican tahay caawa xagga iyo caasimadii ayaad u socdaashay caawa caasimadii baad u socdaasho aad nagala soo hadlaysa aada baan ugu faraxsanahay sidee lagu yihi caasimadii adiguna aada baad u fiican tahay soo maaha walaalo aada baan kuu salaamaya aniguna waan faraxsanahay inaad ila soo hadasho aada ayaan ugu faraxsanay sahra inaad salaamullaahi sahra uu ku maqlaya abwaan cali xasanna aad baan u salaamaya abwaan cali xasan waa halka waxaan iska codsan lahaa afkigay abwaan maxamed ibraahim basir hadraawi waxaan usanaya inaad nagu soo ducaysaan ilaahay ha caafiyo walaalo abwaanadaa duceeye abwaanadan ku wareejinaya aniguna ilaahay waxaan ka baryayaa inuu soo caafiyo haya abwaan ducee inta bugtaba inuu ilaahay caafiyo iyo inanka inantaasi warwarsan tahay ilaaha kuwii hore iyo kuwaan haray uumayow cadaalada haysta een dadkiisa halmaaminoo harada noo buuxiyey oo maantana siiye oo hadeeri maqlaayo ee hareer walba iga xigo birina la hortaagan yihiin hooskiisa u baahano hadraawi ilaahu noo daa hadraawi intaasaan sahra kuugu duceeyey soomaalidana meelay joogaanba waa u duceyneysaa waa aabbahood waa abwaankoodii waanu jecellahay ilaahay caafimaad ha siiyo aada iyo aada ilaahay adigana abwaan jasaa'iga kaa siiyo khayrka ilaahayna waxaan ka baryaynaa abwaan hadraawi inta bugta soomaali meel kastay joogaan iyo intii islaamaba inuu caafiyo caafimaad degdega ayaanu ilaahay uga soo baryaynaa abwaan hadraawi soomaali oo dhan baa u duceynaysa islaam oo dhan baa u duceynaya inta kale ee bugtana saas oo kale bal telefoonka xiga halow salaamu calaykum halow halow salaamu calaykum وعليكم السلام aada baan kuusoo dhaweynaya magacaaga iyo halkaad kasoo hadlaysid ولا لا جروان كسر لي جروي reer garowe aada baan idin soo dhaweynayaa abwaankiiniba caawa fadhiya habeenada kalena sidaasi ka badan ayaan rajeynayaa inaad ila soo xidhiidhaan bal cali xasan ayaa caawa jooga cali puntland si toosa ayaan isaga iyo adiga isugu kindeynayaa soo dhawo walaal ولا لا وادوها هذه أطلع ما سنتين ولا يعرف يسافر كجار ما هي لكن واحد ويان أولك إن بدل ما كلامي salaamullaahi adeer waa ku salaamay haye waxaan rabaa inaan abwaanka weydiiyo ma garanaysaa insha allah dhinaca soomaalida in heeso ku saabsan oo ma garanaysaay baraarujin oo ma garanaysaay inay soomaaliya isku dumanto inaad ka shaqeyso ayaan aada iyo aada ku jeclaan lahaa inta ayaad codsanaysaa marka inta oo dhinaca heesaha wadaniga dhinaca wadaniga walaal waa sameeyey soomaaliya duba heshii hees la yidhaahdo ayaan sameeyey oo aan soomaalida uguna duceynayo kuna tusaaleynayo khaladkii dhacay in la iska cafiyo telefishinka ayaan caawa idinka tilmaamayaa waa youtube-yadana wuu ku jiraa haddana mid kale oo aan tumay baa jirta oo aan rabo inaan soomaalida usii sheego haddaan wax kaa xusuusiyo intii aada kala lunteen lababa meel taaganayd 20 sano ay ahayd ood adduunka u liidateen dhiiggiina ladaabateen libaan jirin raadiseen qabyaalad u loolanteen lixaad isu sheegateen ilaaha wixii lumee la waaye badbaadiyow niyadda isu leexiye ee quluubta lamaaniyow labeen isu kaaya mari heeskaas oo hadda tuman ayaan usoo gudbinayaa soomaalida
kaa horena wuu ku jiraa marka insha allahu kaasna waad maqli doontaan waana isu baraarujinay waana u ducaynay haddana waxaan telefishinka ka leeyahay war meelaad joogtaanba isi saamaxa qoys batay baa tihiin qabaa'il ma kala ahidin marka sidaas ayaan hadalkaygii kaaga soo maaragtay u tilmaamayaa deeqa maxaad markaa aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay inankaa muwaadinka ah ee jecel soomaalinimada bal cali xasanna heestii uu rabay iyo wacyigelintii uu rabay waxaan filayaa inuu ina kaaga tibaaxay inta kalena aad ka heli doonto websaydyada qaarkood aada ayuu mahadsan yahay bal telefoonka xiga hallo asalaamu calaykum hallo magacaaga iyo halkaad kasoo hadlaysid gabadha wuu ka go-ay telefoonku waana nagu soo noqon doontaa insha allah marar kale telefoonka xiga hallo asalaamu calaykum hallo telefoonadii waxaad moodaa reer puntland asalaamu calaykum calaykum asalaam aada baan kuusoo dhaweynaya magacaaga iyo halkaad kasoo hadlaysid ana waxaan kasoo hadlayaa sacuudi arabia waxaan ahay muwaadin u dhashay puntland maasha allah aada baan kuusoo dhaweyneynaa aniga iyo cali xasan dabcan fanaanka magacaygana waa cawil cismaan oo looga yaqaan puntland ilkabiro cali xasan inuu ku garanayo ayaan u malaynayaa ana barasho wanaagsan ayaan ku leeyahay barnaamijka dabcan waad la socotay abwaankeena waan salaamayaa 174 salaan qaaliya iyo adiga deeqaan labadina waan salaamayaa aad baan anaguna ku salaameynaa walaalo ilaahay ha ku kaalmeeyo hana ku karaameeyo cali xasan maxaad leedahay isaga cali xasan waxaan leeyahay caliyow waxaan ka baranay in aad samaysid wax la yiraahdo ummadda sida calanka puntland heesta oo kaleeta laakiinse waxaan aada u jecelahay madaxweynaha imaan doona oo cusub insha allah sidaan dareynayno inaad hees qaaliya aad u samaysid oo aad ingiriiska kusoo dhinay gara u keentay caasimada puntland anna waa ujeeda haddii la yidhahdo gara waan tegayaa doorashada madaxweyne insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu mid khayr qaba keeno mid khayr qaba ayaa iman doona insha allah waxaana ilaahay caafi leeyahay abwaanka xanuunsanayo la yidhaahdo hadraawi aad baan ilaahay uga baryayaa inuu caafiyo insha allah aamiin walaalo aada iyo aad baad umahadsan tahay hadraawi ilaahay caafiya insha allah bismillaahi kariim wuu ladnaan doonaa adigana aad ayaanu kuu salaameynaa heesaha madaxweynaha cusub ee puntland iman doona insha allah bismillaahi kariim mid walba lama dooneen mid khayr qaba mid ummadda u khayraan ilaahay uga baryana mid ummadda u khayra insha allah bismillaahi kariim oo kii lagu degi lahaaya ayaan ilaahay idinka rajaynayaa cali ayaa kula hadli doona walaal waad mahadsan tahay waa ku maqlayaa aniga sida la iiga bartay ama dareenkaygu yahay waxaan jecelahay inaan dadka soomaaliyeed meelu joogaba haddii aan kari karo isku wado siyaasadda ma jecli oo anigu siyaasi ma ahi waayo waa laba caalam baanu kala nahay waa tilmaami karaa wixii markaas aan garan karo oo aan khalad u arko haddaan wanaag u arkana waa ku guubaabinayaa puntland waa u duceyneynaa meelaanu joognaba aada iyo aad si xaqana waxeedu ha ugu hirgalaan baanu leenahay kii yimaada iyo kii joogay iyo kii la doorto iyo kulli anigu waa u hambalyeynayaa ilaahayna wax wanaagsan baanu ka baryeynaa soomaaliya oo dhanna sidaasi la-eg min shimaal ila junuub min sharqi ila algarb meel kastoo ay ku nool yihiin waxaan leeyahay walaalo wada jira noqda oo isu kaalmeeya sidaad markii dhibaatadu hadda ka dhacday bariga soomaaliya ama puntland siday uga xanuunsadeen meelay joogeenba ilaa haddana ay hawshii ugu jiraan xabadda iyo dilka iyo walaalkii dilaan inuu liitaa la yiri war wax wada qabsada oo noolaada dhulka adduunka ugu fiican oo ugu qaalisan baad leedihiin
dad fiican baana tihiin markii runta laga hadlo oo ummad waliba markii wax ku dhacaan baa waxaa la arkaa daldaloolkeeda iyo liidnimadeeda laakiin adduunku wuxuu idinku ammaanaa dad firfircoon dad caqli badan laakiin caqligii dhinaca xun u isticmaalay marka caqliga dhinaca wanaagsan Soomaaliya ula soo noqda wixii yimaadana ilaahay khayr ha inooga dhigo intaasaan anu kaga haray aad iyo aad ayaan u salaamayaa dadweynaha reer Puntland oo caawa si mugle barnaamijkan uga soo qayb galay madaxweynayaashii hore ee Puntland soo marayna aad ayaan u salaameynaa iyaguna wax fiican bay qabteen madaxweynaha hadda joogana aad baan u salaameynaa isaguna wax wanaagsan buu qabtay inta isu sharaxaysa maanta hadii nasiibkoodu siiyana waan soo dhaweyneynaa anagu haddaan nahay bahda reer Somali Channel telefoonkii u dambeeyay ayaan qabanayaa barnaamijkii oo gabagaba ah hello assalaamu calaykum عليكم السلام aad baan ku soo dhaweynayaa magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysid magacayga waa Leila Daani aniga iyo Cali Xasan ay saxiix salaamayno Leila baan ku salaameynaa anaga ka qaadna Leila haye barnaamijkii oo gabagaba adiga ayaa noqday qofkii ugu dambeeyay nasiibka u yeeshay anaga saas Cali Xasan salaamay haas waxaan ka codsanaynaa ku dayo Puntland ku dayo waayahay Leila waa ku salaamayaa waxaan u malaynayaa hadda macaankii oo dhan la wada heli mayo mar haddii ayaan muusig lahayn marka in yar baan maaragtay in yar uga qadhidh hay baldaya dalka baxadale baleega badaha isku xiraan haddana barigoodgoon baleega bidixda iyo midig shaleeca labadaada baal balee quruxdiisa badan dalxiisku baahaya iyadoo kamanaan kuu qaadi doonaa insha allah bidmillaahi kariin Cali Xasan barnaamijkeennii waa gabagabo aad iyo aad waxaan kaaga mahad celinayaa sida sharafta badan ee adiga ogolaatay martiqaadka yaad salaami lahayd caawa wixii dardaaran ahaa reer Puntland iyo Soomaaliba waad siisay abwaankeeni karaamada lahaayo isaguna xanuunsanaya waad u ducaysay oo waliba suugaan baad ugu ducaysay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa bal caawa yaad salaami lahayd waxaan maleeyaa Leila khadka ku jirta miyaa way ka baxdaan filaya okay walaal waxaan salaamayaa marka hore salaan guud oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan salaamayaa marka ugu horeysa caruurtayda waan u maleynayaa inay caawa telefishinka iga fiirsanayaan masha Allah iimaan aabba telefishinkan kaaga soo duceeyey caawa waa sanad guuradaadii masha Allah xoogaa waa kaa daahay waa ku imanayaa haddii ilaahay idmo cabdiraxmaan baan salaamayaa caawa birthdaygeedii waa 18 sano gaartay in ka badan ha jirto insha Allah bidmillaahi kariin iimaan anaguna hambaliyo ayaan ku leenahay cabdiraxmaan waa salaamayaa cabdallah cabdirashiid nasra oo ah ilmaha tan ugu yar insha Allah aaba waa ku salaamayaa waana ku duceynayaa waxaan salaamayaa walaaladay waxa soo warsame oo Denmark joogta iyo caruurteeda Ismaan Xasan warsame oo jooga Canada iyo caruurtiisa ilma Cabdi Xasan warsame oo jooga Soomaaliya gaalkacyo dhamaantood waa eheladii waa qoyskii waxaan leeyahay inteena kala maqan aragti wanaagsan Ilaahay isu keentuso inteena wada joogta ama ismaqli karana hadee maqal wanaagsan amiin waxaan salaamayaa fanaaniinta Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan salaamayaa Axmed Cali Gaal waxaan salaamayaa Xasan Aadan waxaan salaamayaa Maxamed Axmed Allah Ilaahay maaragtay caafimaad ha siiyo hadraawo u duceynayaa waxaan salaamayaa saaxiibka Jookle waan falan wadaagnahay waxaan salaamayaa Maryan Mursal ma dhameyn karo iyagoo isku duuban salaantaas guud iga aqbala waxaan salaamayaa ninka la yiraahdo Juba saaxiibkay ah warfanaanin kulligeen salaanada lama gaaro wadaan
idin wada xusuusan waayey qalbigaad ka wada xasuusantahay ka wada aad iyo aad cali xasan waxaan u ducaynayaa dadkii dhibaatadu gaartay oo Soomaaliyeed ee maalkoodu lumay ku naf waayey ilaahay meelay joogaan ummadda Soomaaliyeed ba ha u yasiro iyaga wixii dhintay Allah u naxariisto aamin intiina kalena waxaan idinku bogaadinayaa ilaahay baa idin gartay arintaas inay dhacdo Soomaali baad leedihiin Soomaali oo dhan baa idin gurmanaysa marka ilaahay ha inoo yasiro aamin cali xasan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay inta aad salaantay oo dhan ayaan aniguna salaamaya gabadhaada iimaan ayaan leeyahay inta in ka badan jir ilaahay gabadh baariyo danteeda iyo diinteeda iyo waalidiinteedaba taqaana ayaan kuugu soo ducaynayay in ka badan daawadayaal dhammaan waad wada maqlayseen abwaankii weynaa ee Soomaaliga ahaa ee inta af Soomaaliga ku hadasha iyo inta af Soomaaliga taqaanaba abwaanka uu ahaa xanuunka inuu ilaahay caafiyo oo cali xasan halkan uga duceeyay oo ummadii kale nala soo hadashay u duceysay in qof kasta oo Soomaaliya maanta maqlayaba ilaahay uga baryo inuu caafimaad degdega u siiyo intii cali xasan salaamay oo dhan iyagana waan salaamayaa caruurtiisa bahda fanaaniinta meel ay joogaanba ehelkiisa iyo dhammaan Soomaali meel kasta joogaanba waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan barnaamijkeena intaasan ku soo koobaya teer iyo toddobaadka dambe intaan ku kulmi doono waa aniga oo Deeqa Maxamuud iyo Cali Xasan waxaan idin leenahay dhinaca farsamada waxaan noo daadahaynayay injineer Saciid Fadhaaye Cabdi Samed Cabdi walaalkay isagana wariyaheena qaaliga ah Cabdi Karin Cali Kaar awaalo isagana nagula sugan iyo nuuro yarba waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan idin salaamayaa sida iyo habeen wanaagsan kulanti dambe waxay sala daawadaya يا سلام haddaba dukaanka Shamsul Baadiya labiso adigoo asturan waxaanad ka helaysaa ee dhex yaala waa cabaayadihii faashinka ahaa cambuurada iyo waliba jewelry-ga haddaba wixii faahfaahin dheeraada ka dheeho shaashada hortaada taala iimaylada iyo waliba lambarada si toos ah aad ugala xiriiraysid